nebi maxamed arigu reer markuu raacay shaqaalnimada addoonsiga waa maxay addoonsigu waa in aad cid u daba fadhiisato quudkaaga walaalowga shantii Soomaaliyeed iyo haddii Soomaali kale soo baxdaba fursadda ugu dhaweyn ku heli karnaa wataa mabda'a Soomaaliyeed qaabka kaliya lagaga xaqiijin karaa wakaa hadhowna axdiyada guud luqad baa naga dhaxaysa Soomaali yiraahdo aynu wada tashano meel wada fadhiisano nidaamka buugaagta iyo systemkii wixii la qorayay iyo wixii luqadan iyo dhaqankeena ku saabsan dawlad baynu dawladda inuu yeelaan bal mustaqbalka Soomaalida haddii aynu iraahno 2060 siday ahaanayaan bal markaad maanta iyo siday u socdaan iyo halkay ku socdaan aad ku salaysid aragtidaadu maxay tahay weliga meel maqashay jacayl qofkaas jacaylkooyadii waa daraadi buu dhintay jacaylkan baasay gabadha yar loo galaya loo qaadayo ama ninka yar loo qaadayo loo dhimanaya xaguu ka yimi halkani waa Mehal Podcast waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah Bilal Mustafa marxalad kastoo qofku ku sugan yahay tashattut iyo waxa ku imanaya baahsanaan kala duwan haddaynu eegno dhalinteena waxay aad uga cabanayaan baahsanaan noloshooda dhinacooga ah ma aqaan xag wax ka bilaabo dhamaadkiisa maba arkayo iska dhaafay halku hadda taagan yahay ayuunan is ogeen dhinaca kale markaynu eegno mujtamaciyan waxaynu u eegnahay qaar aaban garanahaynba meel ay u socdaan meel ay ka socdaan kaliya bari baanu saa ahaan jirnay ay kaga dhigtay garanahayn boqolka sano soo socda halkii taagnaanayaan iyo qorshahoogu wuxuu yahay maanta waxaanu ka hadlaynaa mawduuca baahsanaanta ummaddeena haysataa waxaana inoogu martiyaa المعروف لا يعرف آذن سهن كسودو مهال بودكاست أبو ما سنت وران هذه أبو ما سنتين دمنتين مهال بودكاست يو أصحاب شو حرام كلام كركين برنامج كان هذين توسس كجلنا سدح مرحلات بينو كجهل دونا مرحلة كوبادو قفكو إنتونن جارين مركزي دا قانجاركا أو سكولكي دكتور هوسر دحو كتشرو سارة waxa haysata dhalinyarteena maanta inuu iskuulkii tagayo ka soo noqonay guriga imanaya telefoonka qabsanayo hadhow toolanays arkayo meel uu taagan yahay oonan ka soo noqon lahayn sidoo waqtigiisa uga faa'iideysanaya baahsanaanta nololeed ee hadda haysata sidoo uga bixi karaa maxaase ku keenay iyo walaalkay muujmada fikradaha qaybta guracaan bay kamid tahay waxaan aaminsanahay inay mujtamaceena mahuraan u tahay in la helo dad muqayyiriina oo subaxii qaado soo kacaabayhiina qaad ka seexda in la helo dad gabadhooda iska meedho dantooda eriyada in la helo dad baahsanin duqama la helo mujtamaceedana ugu jirta aanan u aaminsanahay aadan ahantay taariikhda adduunka dhan haddaad wada eegto casrigan aynu joogna adeegta adduunkiisu furan yahay dadka in yar oo 10% aan gaadhinna waa elite nukhba ama qamaamuur ah ama xul ama laangooyo arbixinta la doonaha loo yaqaanay وأنت كله حاجة كرتا أما وحساب بيرين كرتا ما وحلا ضرب فريسان كرا جناح ستوا وين هاتو مدحها هاتو عقليا دتك وجهية هاتو قرايو مترجمين واحد دونها شكتان بقولك بس عشان كلنا ورعيو تبعية وأنت كله كده بفريش هل بنيك وجهية إنه وجهي سند مركا إنك تسكين كان خلدنا وحويا أنا هقار ريت كي مجتمع عمله حلك تتكاهي لانجو يدعى بعله إما كمثلا maxaynu doonaa qof kasta inuu noqdo qof active oo productive oo wax soo saar leh oo qof waliba uu meel ka soo baxayo aanu haba yaraatay wax dhalinyaro lagu duro ama baahsanan ama arrimaha la midka aanu lahayn qof kasta inuu active noqdo maxaynu doonaa haddii ummaddu dhan ay wada active noqoto qof waliba uu meel ka soo baxo dee walaal lama wada noolaan karayo dadka ilaahay baa kala irsaaqaya meelo socotaa marka anaanahaas baahsanaanta cidda iska lihi waa cidda ummadda xulka u ah ama laangooyada u ah ama qamaamuurta u ah madaxda ha ahaato dhaqaalayahanada ganacsatada waaweyn ee hantida buuran haya ee wax wadi karaya ha ahaato culimada oo anagu eedo koobaad saaro ma inaan leeyahay culimadu waa dad xun laakiin in badan waxaan arkaa doorkoodii inay gabeen hagista ummadda inay gabeen dadkaas ay canaanta noocan ku dhacaysa maxaa mujtamaca loo jeeyn waay ummadaha adduunka dad u fiirsato wadamadan maanta horumarka lagu sheego dadkoodu iyo dadkeena markaad eegto wacyi ahaan dadkeena wacyi sareeya xaqiiqatan dadkinu laga yaabaa inaan wax akhriin laga yaabaa in lagu yiraahdo in Faransiiska qofka Faransiiska sanadkii wuxuu akhriyaa 5 buug oo kale waa mujmal guud markii la isu geeyo fursadihii uu saamaxaya waxbarashada nidaamsan oo caadiya haddana ka wuxuu akhriyaa wax suura islaanta halkaas ka fadhida sariibada khudaarta ku iibinaysa inay ka wacyi sareyso faham ahaan meel soo tawalkeeyo marka fikradan in qof kasta laga eego dhanka productivity iyo wax soo saarkii inuu qof meel ka soo baxayo qof firfircoon oo wax soo saar leh uu yahay fikrad واقع nololeed jira adduunka ka jira horena uga soo suura gashay maaha mid imika ka suura galisana ma hasi ku soo dayna ma suura gali doonto
iminka مثلا fikradahan uu kasoo horjeeda waxa kamid ah qaadka in la joojiyo anu maqal qaadka in la joojiyo limaada shay marka meesha laga saariyo in bedelkiisa la sameeyo haddii maanta qaadka la joojiyo imisa dayday buu inaga hayaa imisa tuug buu inaga hayaa imisa qof xun buu inaga hayaa imisa qof oo dhibaato iyo gardaamo ummadda ku noqon lahaaba meel fadhiyo qayirayo halkaa ka baraacinayo ka sheekeynaya meela socotaa bura waxaan xasuustaa 3 maalmood baa qaadka la waayay ma garanayo ma 19 ma 20 meelahaas ah magaalada burcayna dhex maraysa waa la waayay inantii lama xumaynayo lama dhibayo waxba looma geysanayo ragan 5 sano u dambeeyay dumar baa arag ayaa sharmadii meel kala laabtaba ka daba kacayuu lambar ka qoro inantii haasaawinayo la magaranaysa surinkii ka laabataba hablo guriga ka soo bixi kari waayay marka nin waxyaabo fara badan oo maanta dhaliil ah qaad in dadkuna ay qaad ku fadhiyaan oo wax ka ku mashquulsan waa dhaliil laakiin isla waa dhaliil balaayooyin imsibooyinka waaweyn ku gudban oo hadii la soo fasaxo ka soo soo dareero suuqa kaalaya de walaal fawdo kasta ugu bilaamaysa meel socotaa marka waxaan qabaa war dhaliilaha guud ee ummadda loo jeediyo ma hay ummadda loo jeediyo waa in dadka xilka inoo haya madaxda lagu jeeyaayo Soomaalidu waa dad waxa lagu oranaya waxna ma qoraan waxna ma akhriyaan dib waxaad noo Soomaalidu meel wada qoraayay noqdaan inta qoraayada ama canaanta leh ama wax qori kartay ka gaabisay ama 5 sano halka buu qoraysa ayaa canaantii ee dale meel socotaa marka waxaan qabaa dadka xulka aba canaanaha noocaas ay ku dhacayaan rayidka caadiga ku dhicmaaya anoo su'aasheedii haddana ku soo celinayo ku sii socda waan ogahay inaynan dadka cid kasta hagaagayn aayaddii qur-aanka ahayd ee innaka laa tahdi man axbabta walaakin allaha yahdi man yashaa waxyaalaha bini'aadanka iskaga jira waxaa ka mid ah inaan jecelahay inaan qof kasta noqdo waxaan doonayo kale ama dee halka wanaagsan ee wanaag aan cid kasta la jecelahay laakiin qof kasta waa saa aad sheegayso oo maaha anu mararka qaarkood waxaan idhaahdaa haddii aanu qofkan ilaahay ugu talagelin inuu tooso ma tooso haddii aad isku daydid maanta oo dhan qofkan inaad ku tiraahdid bal waddan iska daa waxaan samee kan samee war laguma ilhaaminba ninkan amaba looguma talagelinba nolosha inuu ka gaadho halka doonaysa inaad ka gaadho isagu diyaaru maaha bal iskaba dhaafa waa taad sheegto waa la isku dul arsaaqayaa dadkane laga yaabaa inuu yahay haddii maanta la wada odhan lahaa ha la wada fikiro qoraa ha la wada noqdo keebaa waxay ka iibsanaya ka kale sidee loo wada noolaanaya si iskuma so waa horta waa mid ka mida nolosha haddaba kuwaa laftigooga kuwaa doonaya inay dhaqaaqaan kuwaa garan la'a jahadii kuwaa isweydiinaya ee le waxaanu doonaynaa inaanu meel gaadhno laakiin waxaanu garan laanahay tubtii waan luunsannahay maxaana haystaa ma odhan karnaa waxa ugu weyn ee maanta dhalinteena ama kuwa doonaya inay meel gaadhaan cagta jiidaya inay tahay social mediaha ama media hadda waxaynanu isku idhaahno isticmaalkeega ku mashquulkeega waqtigoo badan uu ka cunayo yowlaha walaalkii anigu aadan ahaanteeda waxaan qabaa burburkii ummaddeena ku dhacay kadib social media iyo baraha bulshadu waa nasiibkii ugu weynaaye aynu helay anu saasaan qabaa cagsiyan dadka social media iyo baraha bulshada fikradda khaldan ka haysta inuu kuma jiro aadan ahaanteeda waxaan qabaa burburkii dowladda ka bacdi nasiibkii ugu weynaa wixii ugu weyn badnaayeen nasiibka u helay ugu wanaagsan waa baraha bulshada haddii maanta diinteena baraha bulshada kubciyey iyo dee culimadii iyo meel walba nagala hadlaysay iyo meel walba taagan iyo dhalinyaro culimadiiba dacal ka dhaafay oo si wacan diinteena u fahansan si yaroo dhalinyarada ay la jaan qaadayaan ugu soo gudbinaya meela socotaa afkeena waxyaaba ilaaliyay buu ka mid yahay dhibaatada waa maxay dhibaatada waxa weeyaan dadkeennii mujtamacii guud ahaan psychologiyada duqsiga yeelanayo waxaynu eegaynaa مثلا بوقت الأخير iyo buugtan iminka soo badan in la soo tarjumayo dadka qofkaas taagan kula niyow buugtan maxayna tareen waxay noo dhibeen baa ka badan in la iska daayaa fiican oo dadku ay soo iska hadaan maxaad aragtay dhalinyarada oo dhan baa wada calmaaniyiin iyo mulxidiin noqday dhalinyarada oo dhan ma aha xataa 1% ma dhama hadii inuu waxay doonaa shaygan inuu faa'iido barax tiran noqdo wax dhalinyarada bay yarataan u yeelan ma dhacayso laakiin ma dhacayso meel socota marka wax kasta dhaliil way leeyihiin afka Soomaaliga markaad eegto dee walaal mujtamaceena maanta waxa la oran karaa dadka magaalada jooga 95% ka badan waxna way akhriyaan farlaawnimadii iyo literacy way sii yaraanayeen meesha ka sibxayeen dadka reer miyiga bay ku harayaan iyo waayeelka waaweyn ee iyagu dhaafay marxaladii wax ku baran karayaan maxaa sababay laga yaabaa 2010kii wixii ku horayeen la soo helayeen niman inaga laaleega ma hableena laaleega go'aan magacooda qori garanay maanta ma jiraan maxaa sababay baraha bulshada qayb ka qaatay buugaag in buug la tarjumo oo buug la akhriyo iyo waxaan oo dhan cid wada waa iyo baraha bulshada mana soo tawalkay nin waxaan qabaa bahalahaasi xumaanta lagu dhaliilaana kaliya waxa weeyaan wixii awalba dhici jiray ee ama gurigan ugu laga ogaan jiray ama dhowrkan guriga iska soo horjeeda ama sakadan ama xaafadan ay baa yara baahayo dad badan ay ogaanayaan mooyaane xumaana cusubna baalkan inoo ma keenin meelo socota wixii jiray uu ummadii ka dhex jiray mudibada u soo saaray intii inoo toosiyay baana ka badan intii inoo hagaajiyeen taas oo qodobka xiga baahsanaanta waxaan aaminsanahay shakhsiyan qofku intuu yar yahay
inuu nolosha ku cadaabmaa inay qayb ka tahay hadhow inuu qof caadiya noqdo ama qof meel ka soo baxa uu noqdo ilmo yaro iska cadnaanahoo siduu nus saaca hooyadii aabihii uga qaadanayay markii dambe iskuul ku dhameeyo jaacad ku dhameeyey hadhow hataa marka wax kale la iska soo dhaafo carruurtiisa wuxuu uga sheekeeya ma hayo muxuu carruurtiisa ku odhanaya marka intaad yar tahay inay kaa baahdo taladu kaa baahdo wax waliba kaa baahaan noloshu aad dareento sidii noloshu keligaa kula dagaalamayso kale waa qayb ka mid a laakiin ceebtu waa maxay inaad isdhigato oo aad dhex fadhido war xataa dembiyada ilaahay subxaana watacaala diinta meel laba inaguma odhan yahay ma dambaabi kartana maha dambaabin laakiin maxaa laynagu yidhi war dembiga caynkaas ha ku dhicina haddii ay dhacdo boqolaal dembi aad ku dhacdaanna ha quusanina laa taqnaduu biraxmatillah inaad quusataabaa dembi sideeda waaweyn oo kabaa'ira meela socotaa marka waxaan qabaa war isdhigashada iyo isdhiibitaanka weeyaan cilladu laakiin inaad baahdo in aad dareento nolosha inay ku karkarinaysaa waa qayb ka mid a koritaankaaga iyo kobcaaga shakhsiyadeed waa qayb ka mid a mar haddaad berihii bulshada haysato mobil aad haysato cidda doontana aad ku xidhmi karayso muhiimaddu waxa weeyaan inaad dhanka cidda aad u dareemaysa inay wax ku tarayso aad u badato kaas waa qodobka xiga waxyaaba baahsanaanta dhalinyarada u sababa waxaa ka mid a qofku wuxuu yahay wuxuu doonayaa inay kaafiya kala dheeri noqdaan masalan qof dhalinyara baa imanaya wuxuu taagan yahay niyo waxaan doonayaa inaan noqdo qoraa laga yaaba inuu dhowr qoraayo meel lamaanaya cabdul cumar mansuur oo kale cabdiqaadir arrooma oo kale shakhsiyaadka waaweyn juxa buugiisanayna qabyo quursi oo kale la amaanayo inuu arkay dadna uu iska jeclayso inuu shakhsiyadaas oo kale yeesho ama qof saas kale wuxuu qoro uu noqdo qoraalkii ma fahansana qaab qoraalkii waxaan iyaga tafaftiriyay baa qabanay markii laga yimaado siisamkii xigashadii ma fahansana bal ceebaa bay dhalinyaradeen wax qoraabadoodu u yaqaanaan buugaag ku dhex jira in buug wax laga soo xigto leeyahay hebel baa sayid ama hebel baa inta ka soo xigtay meela socotaa waxaasoo ciladaahoo jiraba qofkii dhalinyarada doonaya inuu qoraan noqdo dadna dawlad way ka baahaysaa marka dhalinyaradu buugaagta ay ku weydiinayaan maadaama badanka buugaagta lagu tumay lagu hadanayo inaan buug qoraabaan doonayaa su-aasha ugu lagu weydiinaya waxa weeyaan ee ugu badan ugu soo noqnoqotaa buug inuu imise buug noqdaabaa laasima war maxaa buugaga kaa galay muhiimaddu xogtaad gudbinaysa intaad ku dhammaystiri karayso 500 buugna ha ahaatee meela socotaa walaalkay baahsanaanta waxaa keenaya qofka dhalinyarada inuu wax laabta ka jeclaysto aanu haabkeedii haynin maaha macnaheedu han ha yeelanin laakiin dawlad hankaagu ha noqdaan waaqacaaga la jaan qaaday adigoon laba erey isku toosin karaynin waxaad hadalkaaga caadiga waan tira baqash yahay haddaad niyadda ka jeclaysanad aboon iska noqoto sida aboon weersamo kale lagu ammaano ka war adna waad fashilmaysaa waxna ma soo biirinaysid waana niyad jabaysaa niyad jabkaasana wax walba kaaga xun marka warniyow la tallaabsada uun waaqiciina bibasaada saasaan qabaa 16 jir ilaa 20 jir 3 shay oo la iga rabo inaan xooga saaro inta aanan gaarin 21 waa maxay niyow horta akhris mar walba akhris حفلة لبدا سؤال كان آخر سكسك جوابي وايو موضوع كسؤال دون سنة وحكى براتو آخر سباكاي بوقت تلاقي قري سوق بس آخرسو من ساعتها آخر مرة آخر كل حجرته مرة آخر كل يوم هذا يناد بوقن آخر بودكاست إذا ما أنت بودكاست كان عاد بمدة ولا ما فاهم أنت على لسان ما نكيو جيران هالبودكاست ما بودكاست ما نجيسان ما كعرفت ولا أقول حرنا كودي بودكاست دقيسو برامج كذا وحسوسات وحترك كولا أديك وكون فاعي عدها سوداني دقيسو لا سوى واحد لكن هل خلد سكيل عالي inaad isku daydo adigoo 16 jira ama 17 jira waxaad markaa bilowday in markaa midho ku noqdaan ama markaa baad ka midho dhasho adigoo 20 jira ku fikir inaad noqoto turjumaan soo dambuugle turjumay waxa leeyahay qof noloshiisa chapterkii 20aad ka akhriyay buug noloshiisa adigoo hordhici buugaaga ka maraya isbar bardhigande meel soo tabaralkay hankaagu hala jaan qaado waaqacaaga bibasaada waxna akhri inaad wax akhridaa waxay kaaga filaanaysaa wax kasta oo kale cid weydiin lahayd online digala tan ganacsi baad doonaysaa Soomaaliya inaad dhaqaalaha aad maarayso ama source income aad samayso dhaqaale ka soo galo ninkuu hantida badnaa baa bil akhri 100 mashruuc iyo mashruuc akhri hanti la akhri saykoolojiyada lacagta ama saykoolojiyada hantida akhri bibasaada adiga aqliyadaada dhisanaya noloshaada shakhsiga ku bees gareynaya meel socota waxaad doonaysaa inaad qoraan noqoto nuun akhri buugaagta cabdul cumar mansuur akhri waxaad doonaysaa inaad noqoto misalan allahumma salli ala muhammad إن السياسي نقطة السياسة هو كسر دعيان كذا فهمته وبر آخري بوقت كلا لما تك آخري وهي أدي على بحي مركب وح آخري سؤال كستو أدون ساخر سكاك شوية بي أساسا قلا بوق بعض قرتك وصعب سنة لوين كردن يرلا بوقاس أدي ونوجسو كوبيا طريقة يبي بس هذا أنت عن شعران لها أبهاي أنتم اللي فرستين ويسي شو أنت المنوشة مسوينان بالمشوي أنا شو قرأ تنجعلنا لها أبهاي نويس الشباب نورش نودي ويرانسو وحا ساكا سو هريه waxaana kaga talagal khalad fahanada noocaas kula kulmi doona sidaas ay ku saxan yihiin sida wada dhaqan intuu meel fadhiistay aan qoran
buugga waxaynu ka helaynaa iqra buuggiisa haddii aad u baahan tahay nambarkana xagga hoose amba shaashada ayuu ku qoran yahay haddii marxaladda halkaa kaga gudubno qofkii waxbuu soo bartay wakaa uu taagan yahay jaamacad buu soo dhameeyey shaqo tag baa lagu yidhi wuxuu rabaa haddii ahel iyo xaafad iyo reer ay ka dambeeyeen inuu dee wax taro wuxuu rabaa noloshiisii inuu wax ku biiriyo wuxuu rabaa ummaddiisan iyo mujtamaciisan in uu wax u taro wax ku soo celiyo maxaa ii muhiima oon hadda qabtaa sideen tashatudkan iyo isku buuqani haysta uga dhex bixi karaa maxaa sabahsanaantan aan hadda ku jiro iga saari karaa walaalkii waa inaad priorities kan kala garataa maxaa muhiima oo kama kacdaa maxaa muhiim ahay waxaa jira shay muhiim oo laga sii muhiimsan yahay fikradda dhalinyarada ee la yihahdo social work ama qofkan waa social activistiga shakhsiyan waa wax wanaagsan qofkan ummadda u shaqeeya laakiin dadka aaminsan iyo dadka ku dhaqma iyo dadka ku shaqeeya midna mihi waxaan aaminsanay waxa qabadka ugu wanaagsan aan ummaddeeda u tari karaa inay tahay anigu inaan wax istaro wax qabadka ugu wanaagsan ummaddeeda u tari karaa anigu inaan wax istaro anigu meel iska soo saaro tusaale shirkadaha jira lacagahan ku dirsano saadiyo iyo dahabtii ay kamid yihiin bangiyaa jira lacagaha aynu dhigano bangiyadaas iyo shirkadaha dadkii lahaa ma ummadda u shaqeeya bay niyaddooda haymise ganacsada oo ganacsi aad ka faa'iidaan samaysta ganacsi ka faa'iidaan samaysta laakiin fi nihaaya iyagina way faa'iideen inagina waynu faa'iidnay lacagta saadamay dahabka kugu jirta kama ururaysid inay layska kaa daba mariyaan wax lagugu sameeyo oo lacagta lagaa mayla socotaa ka waran iminka haddii lagu leeyahay aad cid la shaqaysa ciddii ku leedahay niyo lacagtii waan kuu hayaa kaash baan kuugu hayaa hargeysaad u daraf ku jooga daraf kalaan joogaa igu kaada intaasu isagu kaa furtayoo lamarkaa igu soo dirin baad leedahay isagu inuu faa'iidaaba waxaan u samaystay laakiin ugu dambayntii ummaddii buu shaqeeyey mayla socotaa walaalkew markaan maanta buug qorayo intaan buug inuu qorayo ummadda waxa tara ka badan waxaan u qorayaa anigu inaan nafteeda wax taro xaqiiqadu waa caynka anigu inaan nafteeda wax taro dee wixii ilaahay ugu ogyahay iyo intan meelaha badhbaadhayo wixii aan soo helo xoogana ee siduu ilaahay ugu ogyahay u aaminsanaan saxa u arkaan u qoro ummaddan aan isku dayo dee inaan dhaxal uga tago anadaan adduun ka faa'iido nolosheedaan ku maaraysta dee meela socotaa haddana ummaddii baan fi nihaaya wax taraya iminka buugga wabar la yidhaahdo 1500 iyo asaasaankii baa la qoray ninka qoray walaa ummad baanu ka fakerayn walaa cid kale ka fakerayne amiir boqor meel ka taliyo xil ka doonayay buugga u qoro hadiyad ahaan ugu dira maantana waa buugga siyaasadda marka la joogo ugu saamaynta badan weeyaan Machiavelli Florence uu joogay jamhuuriyaddii Florence 1500 ayaa lagu daabaa inagoo maanta hargeysa bir joognaba halkan ku akhrisanayno inaan anfacaya siyaasadaha iyo adduunka sida loo maamulo ka daawanay ka akhrisan Hitler iyo soo anfacayo soo akhrisanay birka joos kashanay marka waxaan qabaa war waxa ugu weynaad mujtamacaaga tari kartaa waa inaad dhibkaagana kaga filaato dhibkaaga ka haysato adiguna naftaada aad dhisto maanta masalan haddaan khamriila ahay khamrigaan cabi dhibinta leeg baan ummadda ku haynaya waaro khamrigaan nafteeda u cabaya anaan lacagteedii dhaqaalaha ku bixinaya aniga laakiin markii ugu yartay waa markaan qof gaari wax ku dhufto waa marka layga cararo ama ugu yaraan waa markaan dadka shaxaad la daba galo halkii aksiga haddaan anigu is dhiso intaan anigu lacag sameeyo aan anigu cid shaxaadan wax siin lahaa aniguna wax istiraana meel iska soo saari lahaa $100 maanta adigoo cabdi aad dhigata bangigu dee bangigiina dad buu sii amaahinaya ganacsi buu gelinaya waddanka ku kala soconaya nin markaa waxaan qabaa aan soo ururiyay yaan sii baahinne war waxa ugu weyn horta waddankaaga iyo ummadaada tari kartaa horta inaad adigu meel iska soo saarto kow laba marka maanta saa iskuulkii uga dhammaato adigii baa weel maran ahoo jaamacada ku sugayaanoo boqolaal wuxuu weli adduunkan u indha dilaacsan weli adduunkii aan u indha dilaacsanine ummadda wax tarasa waahay weel maran wax ma tarade niyadjab marka qaasa maalmo dhow waxaa jira barnaamij anigu halkan iqra barnaamij ku sawir iyo saxaaba inan baa itima xogtiin aadan mustaqbal baan ku dacal baan una yar maxaa dhacay walaa sidii noloshan ka qosto kan niyadjabay wax walaal niyadii dib u soo celiyay imsi jir baa tamsi u jira 9 meelahaas 60 waxaan kaas bigu jira kuni miluu guursaday maya in miyuu ku xumay maya miyaa ma uuriyo balaayo cilada kale miyaa lagu kufsaday maya miyaa caruur lagaaga tagayo ka daba salcay ka dib oo yaano maya hooyada yaaba miyuu ku diray maya miyaa ka dhinteen maya dhibaatada ku haystaa waa maxay 20 jir baa tahay 20 jir ma gaarine intaas mushkiladna ma arage noloshan baasad ka qusatay xagad ku aragtay meel socota walaalkay noloshan laga quusanaya maxaa keenaya ilmihii yaraa dhalinyarada wuxuu arkayaa hebel abuano la amaanayo ama qoraayo la amaanayo ama siyaasi la amaanayo ama nin hanti sameeyay
meel buu iskaga qoranayaa 2025 wayna halkaa taagnaa sanadkan markuu dhamaado uma bisla waaqici kama saacidayo isagii uma diyaarsana gudihiisa ma buuxa hadii gudihiisu buuxo oo qofkani information ku filan hayo hananka noocan ma buu samaysteenba dadna wixii markuu waayo ama intuu qof isku qaaday isku 15 jir wadaad jacayl baan la sameeynayaa ee isla ciyaaloobaan 20 jir ku oranaya nolosha waan ka quustay baad arkaysa nolosha waan he ka quustay baad arkaysa marka waxaan leeyahay wani isaga inaan nolosha ugu qosan nolosha aan idinka xumaan idinku isu noolaada inaad idinku isu noolaato ummadda wax ku taraysa marka laga waramayo arrinka isbarbardhiga iyo inuu qofka kale isla eego yani ninbaa hal faa'iideeyey wuxuu yidhi 5 jirkaaga adigu wax kastood hadda gacanta ku hayso imise sanaad imise jir baad ka tahay yani wacyigaagu hadda intii uu ka soo baxay in aad adigu ismaamushidood wax qabsatidood dee jaamacadaa soo geshidoonan lagu odhan iskuulkii muu tegey intaasaad jirtaa waa imise sano waa 3 sano 4 sano haddii 4 jirkaaga halka nolosha ka maraysa dhinacay doontaba ha ahaatee aad isbarbar dhigtid nin nolosha ka maraya 9 jir ama 80 sano ama wacyiga halkan uu u taagan yahay yani isagu waxay ku qaadatay halkan uu soo gaaray inuu soo gaaro 10 sano 20 sano 30 sano adiguna haddaad maraysaa sanadkii koobaad kadib baad isbarbar dhigtay waa tale leeyahay qof buugii noloshiisa chapterkii 20aad ka akhriyay adoo chapterkii koobaad mixaa kala frid wala isbarbar maraaxisha aad ka dhawaajisay jacaylka waynu u gudbi doonaa buugna waad ka qortay laakiin haddii aynu kaga baxno halkan su'aale ah qofku wuxuu doonayaa laftigiisa inuu waxyaalo badan qabto haddana nolosha shaqada laftigeega qolaba dhinac bay tiraahdaa ninbaad arkaysaa dhiirgeliyo kugu soo kacayo waryaa shaqadu waa cubuudiyo waa lagu guumaysanayaa ka adigii nolol kalaad ku jir maxaad samaynaysaa halkeen qaadaa sideen waxa lay leeyahay meel ma gaadhaysid haddii aanan shaqadan ka tegin shaqadii waan u baahan intaasoo qofaaga xiran baasanaanta shaqada iyo shaqaalaha ka jirta laba eray inuu nimanka dhiirigeliyaa shurtu waa baraciyaal aadna u necba ilaahay ina dilayay dhiirigeliyaasha aad baa u necba waayo ayaan Soomaalidu iska waxay hadallo badan oo gefi bay yiraahdaan waxay dhahdaan waa sida nabiga u talaabso sayteedina ka tagtay nabiga gaar weeyay nimankaasina nolosha inta yaraad gacanta ku haysana waa ka hawaalaya meel ku mijaynaya wanigi lahayn hadii marka dhalinyarada fikraddaas ay wada qaato shaqaalnimadu waa cubuudiye fikradda wada qaato dhamaanteen isku daynayno ganacsiga samayno ya ganacsada noqonaya nabi adduunka soo maray oo aan shaqo gacanta ku haynin miyuu jira nabi ciise nijaar buu ahaa nabi muuse calayhi salaam ninkii xoogga weynaay kullaa nabi muuse ahaa reer buu 10 sano xoolaha u raacayo waraabinayo ma garanaysa nabi maxamed arigu reer markuu raacay shaqaalnimada adoonsiga waa maxay adoonsigu waa in aad cid u daba fadhiisato quudkaaga قاعدة حتى جلست هذا ما تقدر من لا يملك قوته لا يملك قراره إن النساء جيب بس راعي قاعد يدور في الاستول وهو يلا أنا هاتي أي نوع عدون سيا إن لكن لسه بحضه وحاجة بحالش أنا كشقيو وشرف يا كرام سوي مو شيء كمان مهما هي سيد برجع يبي كل شيء بري ما أنا وضد تكون أنا بحبها إن برباري إن هذا شيء راح نمغلي كنا شقي استوى الرجع شهادة واقعة إنه إذا مغلي مهما هذا لا يصير أنت عارف كذا شقي استوى الرجع شهادة واقعة ولكن أنا يوم كل هذا يوم شقيو عندنا ما شقيو فريلانسر بهنا سيدا وشقي سبوقتي أنت تسابرها برشلونة كل حجرة استيل هدنا هديانا لما ذاك عم تكوهين ماشي يقولوا وش شقي صباح مش قتيجي ولو أن سكيورتي قارنا مالك النقدة وح شرف يا كرامة إن الله ذا هي العق أتكو حسات أنتم مالك هذا صور عدو جديد كاجي وحلال ولا أنتم حتى لما درنا حلا عق كله مركها دولة قف نولش يسوي سيدا كده حركة باين ومدة ساكت كذا كبر ما تدنا هذا وده ما تين يوتيوب كالعاب بتكفي فايدة سام بوقت ترجمة العاب بتفيد ما تين بوقت ترجمة يوتيوب هالنقطة أنا قف برام أنا ويوتيوب كي بوقت قعدت كهي عليكم ما يترين ومدنا ومالي يرلان يردي مركان يوم ما كسرت لان يرد شرب بوقت لعب سلا بحالك بعشا شقد اللي هذا أنا وحنا لي هاي بوق بتشرى لي هذا نيل هذا تور هنا رو قرية لي هذا داي إمبتي متفارقا إنه هذا قام بدن ترجمة دي سبب ما قعدت كهي إمو هذا مرة ما يربح جرتوا عن فيلينكس ما مرة كونفرت هاي واحد هذا شغل مرة معته نيك هذا أنا معه الدون كان واحد ليه في ليسا هاد بنت اللي دين ورجعت واحد ليه في ليسا هاد بنت اللي جو إنه ورجعت
maxaa la yidhaha xagla maamaya Soomaaliya dib shaqaysa waa dhargaa shaxda waa qada xagla laaban xoolo laguma helo biyo sacabadaada lagaga dhargaa sacabadaada lagaga dhargaa heestii waad ii garanaya walaalkaa kulay ku tahay walba waxay intu mar fiicana meel socota waa nin mar hadda qof dhalinyaro tahay meel uu ku kaco shaqad ka halkan kula fadhiya ilaahay baan ku dhaartay hadii ay igu klifteenan muddo laba dheel ka noqdo ala jul banu galay inta baasheeda xidho talabaad yaa yiri waa adoonnimo inaad cid u shaqaysan cid wuxuu daba fadhiisata xagii fikrada noocan ka tib qofkan waxba doonayeen loo sameeyo wixii baan u sameeyay lacag baan ka qaadanaya adoonsiga meeshii yaala muxuu heshiiska waxa ku jira time-ka caynka ilaa time-ka caynka saddex shaqaysan shaqada caynka san wada qabanaysa ma ku qanca heshiiskii adoonsiga waxa uu kaga jira xumaantii ceebta xagii kaga jirta nabi maxamed miyaanu adhijir ahayn nabi ciise miyaanu nijaar ahayn nabi muuse miyaanu reer u ahayn dhoobi xoolahana u raacaa una waraabiya shaqada adoonsiga noqonaysa inaan xafiis fadhiisto ama meel fadhiisto ama meherad ganacsi aan ka shaqeeyo adoonsiga waxa ka dhigaya maxay tahay ummadaha faashiliinta baa waxa isku qanciya oo shaqada ceeb u yaqaan mala socota ummadaha faashiliinta ayaa wala shaqada ceeb u yaqaan ummadaha ilbaxnimada iyo xadaarada iyo shaqada way isugu faaraan hebel ma shaqeeyo mise ma shaqeeyo وكحشود قفلوا هذا اليوم مش قيبة قمودار هل كنا أنا شقدا ضد بدل ما ذكر ساوي كسر جيسمك وحلا فهمي جيسمك وحلا فهم لكن ولي واحد بدأ فكر ديني يوسي شران waxaan ugu gudbaynaa haddaba su-aashii ahayd tashatudka iyo baahsanaantu sabab ma u noqon kartaa jacaylka ka horeeya guurka haddaba intaadan su-aashaa ka jawaabin jacaylka ma aaminsan tahay jacaylku waa ana xamsan jacaylku biiska nolosha jirida nolosha ku fadhida waa jacayl إلهي بقى يقول سبحانه وتعالى ومن الناس من يجعل لله أندادا أساسا في الآية دينا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله حب قالوا لك شاكين يا ومحي واحد جريبة إلهي كشاكين يا خيالي جعل كما مرحلة دي إلهي وكل السمي وتحبون المال حبا جما ننكي يقول يسجع قد شغفها حبا ما نسعوتها إلهي مقعدك سحاكم ذا الودود الله كلك عائلك بدن ما استوى لكن النبي محمد عليه السلام حين الله هي متكن حق مر من إلا يو ويجتش عادو ولالكي والدكي يو وبدكي سيد آدم هو رب وحن النبي يجي هاي كيش كيني الفطاطير بقى يعني شعير هين سؤال شن أهم متشرب مسي متشرو هرت سؤال ده بدران مع سؤال خلدم هي ويدا بدرانته وكو سؤال شن لبعض حوي يعني بدك السويدية مبهر كان مدب بولي هاي مسديف بولي أما نعم كان يبلا إذا يعنتها لا نعيم حلقة شكايو شيء سيد الله سبحانه وتعالى وقال يورو فيرسو ما أنت قبل دمع كاك لي هو يدا كذا تعش هو يدا مرور هو يدا شعير كذا درت أنت ما قلت كتاب ولي قام ينمقش شعير قفك شعير كويدي وهي دراتي بقول أنت شعير كم بس قبل يرلو قلي لو قاضي منك لو قاضي لو من يحكوكي وبرع سيد السوق أيوة يو خيالك السوق أنت الله طبق علي ما دام جعل كده دراسات رسمية لو سمينين وحي الله أركين قيب نرشي كم ذا وحس كشك عيال لو أركيو وأن دراسات عادية لو سمينين ولي مجتمع إنه خيالك سوقان تلا طبق عليه سوقان تنا واحد بوحد دريم يوم بنعبرها يا ما كان قبل راس هناك يو براري يو خلق عيل كدريم ميانا وحن لا يدون كما ذي عدنا هم بكون نول ما كان لبسنا ينا ونجاوه نشبه ياله قول كيف ذو رتقي قيامة من سعتها ما كان شعير كان كوقنا عسنة شعير كان كوفر حسن هاي أما شعير كانوا يقولون وناك أنا جي هيو إنه يوناك سنة هنا هدي أنا شعير شرنا دوك بمشوقين هستا من دقيقة سنة ما كانوا يقولون بحكي إني دبيرة ندل كعاشق نداني جل دايما قاضي ولا سعتها خيالك أبو الندى وإنه دبق الله يوم حنا إنه أركين بقيم نروش كم ذي إنه يحيي أيه ولا الكل سبب قدر كره شرا وحكستو وناك سن بيس كيس يو يسيس كتاني وشعيل سعفنت وشعيل سامحد وشعيل وحسترك وشعيل ما له سعتها وحكستو وناكسن دعك دونت كي كاري جعيل كلا جعيل بدكم بخنس هذا عدن وهين إلهي سبحانه وتعالى هذا هيسو يكرسون إلهي كقبتين وإلهي وهل جزاء الإحسان إلى الإحسان بوقات كقرت جعيل كمجيء فيلوفوبيا بوقا بالدقيقة نوجس وكم بحكي عليه وأنت أسمعك هذا يوم كل شيء لبنا غفرين يجون يسفهمان جعيل كنا يسفهمان مثلا أنا وضبع مع الله مركز لي ما تتبع جود والرجوع إليه يتبع جود ودمرك إليه ندلوك لجواني هاي هذا أنا تبعي شخصية يجارو هذا أنا بعمله ما نسعتها إنهم بالجيا بين بريدة معي جارو إنهم تحسنا تبعي جارو شخصية يدو جارو بيلاد يقول بدي بتبعيان لنا سو ما أنا تبعي برتان كوا قابلو وكوا أقبلو يدونو كوا يجاي براتو أنا ومركان نسفهانو كو نرش نقدر حسنا نسلفهان كل سوني ده نسلفهانو جور كأنه نسلفهانو
ubadkanu dhalayniyo waxaanu saan ubadkayga u korinayniyo nidaamka tarbiyinta ubadkayga aanu isla fahanno saqaafil jinsiya aanu isla fahanno wax walba aanu isla fahanno deetna anagoo isfahansan aanu nolosha wada wadano maxaa meesha ka baxaya iska dhaadhicintii nololihii waraabayaasha la samaysanayay anaga reerkaygu halkan ka duulaan iyo anaga reerkaygu hanti leeyihiintii iyadoo inay 100 meekaabi wax iska soo dhaadhicisay taado anigu ha magaalada basaas dib wixii dhama meesha ka baxay laba qof si caadi buu tacaamulaya shakhsiyad baad leedahay markaad kaliya taad qolkaaga joogtay qolkaaga hoosta kaaga xirayaad iska jifto qolkaaga ama xamaamka ku jirto bila difaacahu cidaad iska ilaalinaysa waxba aan jirin si caadi aad u dhaqanto sida carruurta aad u dhaqanto gabadheena nagteeda saagu dhaqan kale iyadoo nagteeda saagu dhaqan karto billahi tawfiiq wixii physical ah ee jir la xidhiidhana baabkooda la xidhanta aasa uu jiro amazing isla buuga laftigiisana waxaad ka helaysaan iqra bookis numberkiisa waad arkaysaan ama descriptionka ama xagga shaashada maraaxisha haddiinu halkaa kaga soo gudubno marxaladii ugu dambeysay aynu galno anuu hal su'aal baan kusoo koobaya soomaalida waynu aragnaa maanta halkay taagan yihiin si kastana waa looga hadlay bal mustaqbalka soomaalida haddii aynu idhaahno 2060 siday ahaanayaan bal markaad maanta iyo siday u socdaan iyo halkay ku socdaan aad ku salaysid aragtidaadu maxay tahay nirtu walaalkay Soomaalidu magac bay wadaagaan isku Soomaali maaha Soomaalidu magac bay wadaagaan isku Soomaali maaha waxa jira Soomaalida qaar qabiilku u saameyn toosa ku leeyahay ya qaran qabiilku saameyn toosa ku lahayn la socota waxaan aaminsanahay Soomaalida uu qabiilku saameynta tooska ku leeyahay ee loo yaqaan inay qabyaalad isku laayaan oo isku baaba'aan oo waa kan xaggan iyo xaggan boqolka wax laga sheego leeyahay way ku shiraatiga wasleenaysan inay ka mustaqbal wacan yihiin Soomaalida qabiilku saameynta tooska ku lahayn marka reer waqooyi ahay deegaanka waqooyi oo dhan ilaa Soomaali galbeed maadaama qabiilku saameynta tooska uu leeyahay hab dhaqankayga waa la ila jaangoynaya mujtamaciiba ila jaangoynaya mujtamaciiba ila jaangoynaya haddii laakiin qabiilka aanu saameyn toosa lahayn mujtamaci saameyn toosa isna iguma leh mujtamaci saameyn weyn iguma leh مثلا هذا المكون في رسالته مجتمع عنو قبيل كسامين تتوس كا كل حين dhibaatooyinka dhexdooda ka dhaca way ka badan yihiin kuwa qabiilku saameynta tooska ku leeyahay ka mujtamac ahaan saanu faahfaahiyeenta maanta daan khalad sameeyo qabiilkayga lagu caayo lagu dacaydinay maadaama qabiilkayga taas ay saameyn toosa ku leedahay caaqilkaygu wuxuu awoodaa intuu yimaado inuu hadda 6 bilood iyo xidho la xidho taasna waa nasuuriya meel socota laakiin markaanu caaqil iyo cid kale toona awood ugu lahayn aabahayna talo wax ka badan aanu igu lahayn fartan doonan qoray sida awadeed in xumaana badan ay deegaanada noocaas qabiilkanu saameynta ku lahayn ku dhex faafaan oo dibadna mustaqbalka 2060 la gaaro marxalad waxyaabo deegaanada kale dilka halka ay dabiici ka noqdaan waa suuri waa ka culture ahaan ka jiritaan ahaan iyo horumar ahaan markay noqoto waxaan aaminsanahay 2060 intana dagaalkan waa iska dhacdhacaayo waa la iska heshiiyay 2060 Afrika ummadaha ugu horumarsan baynu ku jirnaa ayuu ku jiri doonaa baan aaminsanahay iyo walaalkay marka aynu mujtamaca qiimeynayno Ingiriis iyo Mareykanka saawageynuna bala Ingiriis iyo Mareykanka sidoo dhulkooda u dhisanay dhulkeenu siduu yahay laakiin caalamka saddexaad inuu ka mid nahay hadaan isku tirino Afrika iyo Asia hadaan isku tirino Latin iyo isku eegno wallahi safka langooyinu nahay safka horeynu kaga jirnaa hadii Soomaaliland tiradeen musaama badna marka la barbar dhigo ummadaha kale horumarkan ku soconaana waa horumar bulshada ay soo kaliya waxa loo baahan yahay waa dawlado buuqan iyo waxanuun ay kala yaraadaan nimankaas inay dawladooda lahaadaan Puntland waxaan aaminsanahay inay dawlad gaar ah noqoto Somaliland inay dawladeeda ay noqoto dawlad marka nin walba dawladiisa uu yeesho naxligan iyo xumaanta maanta shacabka dhaxaysa meesha ka baxsada wax la isku qabsanaya ma jiraan meel socota ganacsigu inuu furnaado maanta ganacsiyadeena dad u fiirso maanta hadii Hargeysa kamaradu laga qabto maanta wax allaali waxa gaadhi maraya darkayso iyo waxa fooq iyo meel qurux badan dad baale shakhsiyaad baale dawladnimadu waa maxay dawladnimadu waa inay inoo joogtayso ama inoo suura geliso si kalsooni leh inuu waxa u qabsano maanta in saad ama idaaba ilaa ay ku jirto ama bangiga daashay ilaa ay ku jirto damaanadoodu haysata waa maxay damaanadoodu haysata waa dawlad meesha dawlad bay leedahay ma kama shakeysin taraso ama samtala iska lacagta iska dafiri karto ma socota dawladdu waxa looga baahan yahay inta dawladdeenu way qabataa
shacabku iyaga iska soconaya iyaga horumar sameynaya maanta waddankeena warshadaha ka socda sharaabkii baynu samaysanay daqiiqdii baynu wadnaa sibirkii baynu wadnaa inagu Soomaaliland marka Soomaalida kale iska daayo minista walaalkii horumarkaasoo saa maalinba tallaabo loo sii qaado maalinba warshad laakiin maalinba wax la sii kiciyo 2060 waxaan aaminsanay Soomaalida Afrika iyo caalamka saddexaad wadamada laangooyada aynu ku jirnaa waxa qura inaga maqan waa in xasilooni siyaasadeed iyo xasilooni amni la helo oo waliba nimankaas ay helaan Soomaaliya inaguna inuu daclo kala dhacno inta hadii la helo waxaan aaminsanahay 2060 koomadaha adduunka ugu horeeyay ku jirnaa saasaan qabaan u niyo waliba aan ka jiray dadka mutashaayimiinta baan ahaan waxa baasaysta laakiin hadana aragtida ay muuqato insha Allah waxaan rajeynayaa mustaqbalka qurux badan aad sawirayso marka laga yimaado waxyaalaha ku kala duwannahay haddii Soomaali dhinac kasta laga eego ay maanta haddii aynu eegno wadamada aynu ilaan wadan kasta waxbaad kaga dayanaysaa ama qaarad kasta waxbaad kaga dayanaysaa America waa wadamo fara badan oo isku jira haddana waxbay wadaagaan waxbayna ka dhaxeeya Europe sidoo kale waa sida Carabta Khaliij bay samaysato waa sida ma isleedahay waa laga fikiraa markastana waa la isweydiiyaa Afrika isku furanta oo la isdhaxyaaco oo de sidan maanta isku furnaanshahan ma aha isku furnaanshaha Europe yaala iyo meel kasta taala haddaba taa marka laga yimaado markaynu eegno Soomaalida maxaa ina kala fogeeyay maxaa looga fikir waayay markasta maxaa isku keenkeena waxa isku keenana sidee looga faa'iideysan karaa ma isleedahayna insha Allah mustaqbalka waxaynu heli doonaa Soomaali isku dhex socota oonan fiisa la isku qaadan insha Allah walaalkii fiisa la isku qaatina la isku qaadin muhiim ah bal anu waxaan dhaliil u arkaa maanta inagu Hargeysa joogna inaynaan ku khasbanayn kaarka dhashada inuu jeebka dib ku sidana ama mobilka gilkiisa inagu jiro dhaliil baan u arkaa inuu dawladnimadeena ka dhigan in qof kasto maanta Hargeysa jooga aanu kaarkiisa jeebka dib ku sidan wallet kaanu ku sidana ma aanu galka mobilka ugu jirin dhaliil dawladnimadeena ku dhaliila baan u arkaa meena socota oo maanta dalka wax ka geysto shar muddo bistalka ku sii laabanay loodhanayo mushkilad halkan ka jirta su'aashaas waxa dabada la gelaysaa aragtidii Soomaali weyn marka la iska daayo Afrika waxa aragtida Soomaali weyn anu dadka aaminsan baan ku jira Soomaali weyn ummadda Soomaaliyeed in wixii midaynaya ay wadaagto dadka ku aaminsan ayaan ku jira waliba waan ku adkaysanaya waan ku faanaya mabda'a karaamada iyo sharafta leen aaminsanahay su'aashu laakiin maxay tahay walaalkii waxaan doonaa Soomaali hal calan meel uga babado hal nin oo taliyo oo meel qiblo qoro wada jeeda waxa doonaan bay wax isku qabaan ama hay suunaan ama hay islaayaan ama kala adkaadaan ama hay isu qabyaaladayaan ama inta kala aftuubato wixii doona ha dhacaan mise waxaan doonaynaa Soomaali karaamo iyo maamuus leh diblomaasiyahan siyaasiyahan saameyn siyaasadeed adduunka kule gobolka ay degan yihiin saameyn kule adduunka wax ka ah qaramada midoobay ee adduunkii maanta isku baastay wax ka ah badahaas waaweyn ay gacanta ku hayaan badda Hindiya gacanka cadmiyay baabilmandab wax ka ah dhaqaale leh qofka saarkiisa uu ku karaamaysan yahay haddii aynu leenahay niyo hal calan hal isugu hoos yimaado mar baynu tijaabino isku dayna soo nugu Soomaaliland ma nihin dawladnimo dhanbi awoodiyashan uga tanaasulay maanta waa la dhalay waxa la yiraahdaa wayna waanodayashan inay waalna way ku saxsanaay in isku day la sameeyo la arko isku day inaanu soconayn waa qayb kamida ku dhacay risk taking loo baahan yahay aabiyashan maalintii Muqdisho dawladnimadii geynayeen inay dhahayn oo ka tanaasulay dawladda Soomaaliland karaamiye maamuus bay ku lahaayeen in madax laga dhunkado gacanta laga dhunkado ku istaahilan ilaahayna ku karaamiyo qabriga ugu nool waynu tijaabinay 9 sano inuu wadnay waynu arnaynaan wixii soconayn dictator bayna qabsaday wixii nibu isu keen amaaluqay meel socota dagaal sokeeya dhacay waynu soconay waynu kala yaacay halka waxaanu tag ku saarnay in hal calan la wada yeeshaa suuragal ma aha in hal calan la wada yeeshaa suuragal ma waa 19 weeyaan 5 iyo 4 iyo 3 sano 19 ka dambeeyina maalin walba umadu way sii kala fogaanaysa ma aha nacayb kala fogaanshiyo xamaasada bulshadu iska jirtanta wala istaaciiday inagu isaa qaba walaalkii istaaciidayna waa waxba isu reeman doorashadii wixii naga dhacay dadkiis saaqi daarood bal istaaciiday daarood iyo hawiyaal istaaciid bulshad ma aha kala duwanaanshiyo waxa weeyaan sidoo sano inana xabad baa ka dul dhacaysay inana baraadu ku jira intii jamhuuriyadda wada lahayd inana nafteedu guriga maruu ka baxo talow ma soo nabad noqonaya caawu ka fikirayay inana talow masterta saddexaad ama PhD-da goormaan qaadanaya buu ka fikirayay waynu kala fogaan waa ka mujtamac ahaan ka siyaasad ahaan soddon sano inuu dimuqraadi nahayno doorashooyin dhacayaan wax dhacayaan iyaguna maanta ka fikirayaan inay doorashada uun maan fooda qabtaan ummaddiisaasi walaal kala fogaatay marka waxaan qabaa bibasaada
war ninkii doonaya Soomaali inay adduunka maamuus iyo karaamo ku lahaato war aynu xuduudaha Afrika ku heshiisay gumaysiga dejiyana kala iimaansan nin waliba halkiisa dawladda ku noqdo haddii dawladnimada nin walba loo qirana waxaan aaminsanahay wax kasta oo xaraf inay meesha ka baxayaan waxa yimi isu socodka marnaba istaagi maayo marnaba laba nin oo Soomaaliya inta xal kala dhex dhigama istaagayo laakiin qofku inuu sharci sito meesha sharci ku maro oo anigu maanta aadani maalinkan garow tagayo anigu ID-gayga Somaliland sito la garanayna Somaliland kiimu reer Burca ahay aan garow tagi karo ka ganacsan karayo wax ka qaban karayo dawladnimada ay kamid meera socota ganacsiguna saas isugu furnaanaya ganacsigana cidina ma kala cashuuri karto gobol ma kala cashuuri karo iminka ay la kala cashuuraa intaas maamul goboleed lagu cashuuraa waxa muqshay ka yimaada Hargeysa maraya meera socota walaalkeeyo meena waxaan qabaa war Soomaali xuduudda gumaysiga lagu kala joogo sidii aanu Somaliland iyo Soomaaliya u kala hayn aynu kala ahaano Soomaaliyada laftirkeeda waxaan qabaa nimanka Puntland si kasta inay ugu wanaagsan tahay inay dawlad gaar ah noqdaan hadhow toole markii nin waliba dawlad noqday la isku ursamaado nin walba gobolkiisa intiisa iyo deegaankiisa dawladdu samaysto adduunka aynu naano warniyo farahan iska qaadno uu sii deynay xaraf kasta meesha ka baxsan naga madax isku wada qaadanayna halka madaxtooyada soo caanka Soomaaliya iyo Puntland iyo Kameel Hilaaya ka babanaya badarkaysa walaalowga shantii Soomaaliyeed haddii Soomaali kale soo baxdaba fursada ugu dhaweyn ku heli karnaa wata mabda Soomaaliyeed qaabka kaliya laga xaqiijin karaa waka hadhow axdiyada guud luqad baan naga dhaxsay Soomaaliya yiraahdo aynu wada tashano meel wada fadhiisano nidaamka buugaagta iyo systemka iyo wixii la qorayay iyo wixii luqadan iyo dhaqankeena ku saabsan dawlad baynu dawladda inuu yeelaan waxaan qabaa waa nin waliba dawladda lahaw wixii guudna nolosha waaqaca baynu ugu qasbin inuu ku heshino haddii laakiin ujeedkaagu yahay hal calan hal yeesho Muqdisho ummadda looga taliyo calan buluugana hal qaato waxaad ka heshaaday naga siin aad baad u mahadsan tahay waqtigaaga qaaliga aad baad ugu mahadsan tahay waxaanu soo gaarnay guntii gabagabadii barnaamijkeena waxaad ku daraysaa ma jirto aad baad mahadsantihiin idinkuna sida quruxda badan ee u dhageysanaysaan qof kasta halkan soo gaaray waxaan ka codsanayaa inuu barnaamijka si faafiyo sidoo kale uu ka faa'iideysto buugaagta walaalkeen aadan sahnay noo soo saaray oo intaba aan idinku sheegay Iqra Books in laga heli karo buugaagta sidoo kale halka lagala xiriirayna description-ka aad ka helayso aad baad mahadsantihiin waa inoo mar kale